Bismillahir Rahmanir Rahiim waxaan daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya waxaan rabnaa maanta inaan qaybtan ku eegno fariimo in badan aan halkan idinkaga baahin jirnay oo ku aadanaa in Iran iyo Mareykanka wada hadaladooda gabi ahaanba ay diideen ayaa markan si toos ah u bilaabay Mareykanka weeraradiisa sida tooska ah Iran xaaladii ugu xumeed ay markan wajahaysaa hadaba haddii aan hore ula soconay in dagaalku Mareykanka iyo Iran kaliya uu ka dhaxay waxa ku soo biiray Israa'iil oo waliba duqeyntii ugu horeeyay Israa'iil ayaa markaasi fulisay hadaba waa imisa xarumaha sida saxda ah waqtigan la og yahay waliba la beegsaday la burburiyay oo Mareykanku iyo Israa'iil gabi ahaanba isku raaceen hadii mid aan kugu qaadal dhigo xarunta madaxtooyada Iran xarunta sirdoonka Iran iyo waliba aad markaasi xasaasi ugu dhow ee xafiiska hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei gabi ahaanba markan dhulka ayaa la daatay maxaa ka soo kordhay xiisadii in muddo markaasi labada dhinacba fariimo gooni isku diri jireen weerarkaasi hadii Israa'iil ay ku soo biirtay sabab ma u noqon kartaa in Iran hadii weerar ay qaado meesha ugu horeeydo ay ka bilowdo ay noqon doonto Israa'iil intaas ayaan rabnaa saaxiibal inaan halka idin kugu wadaagno waana wararkii ugu dambeeyay ee caalamka sida weyn ugu socda maanta warbaahinada Al Jazeera AB iyo waliba warbaahinno badan ayaa daawacay oo waliba muuqaalada sida aad ku arki kartaan social media maanta oo dhan iyaga ayaa haysan nooc maamada channelka subscribe noo saara like ta saaxiibada hore noo joogo saaxiibo far badan inta tusaysaa saaxiibayaal walaalayaal dhamaantiin mid waad ku maasantiin muuqaalkana noo like gareeyo meel dheer nala gaarsiin naga fogaya soo dhawaada mar kale kuna soo dhawaada Sharif Show aan ku bilaabay weeraro culus ayaa lagu beegsaday xarumaha taliska sare iyo waliba aqalka madaxtooyada Iran oo markaasi laga soo sheegay bartamaha caasimadda Tehran sida markaasi ay tabiyeen warbaahinada Israa'iil waa markaasi iyo waliba wakaaladaha wararka Association Press AP loo yaqaano warbixinada ayaan markaasi sheegaya in dhismayaal istiraatiiji u ahaa iyo waliba dawladeed si toos ah loo beegsaday kuwaas oo ay ka mid ka yihiin xarunta madaxtooyada Iran xarunta sirdoonka Iran iyo waliba aad xasaasi u ah una aqdhow xafiiska hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo waqtigan u muuqda gabi ahaanba in markaasi Israa'iil ay si toos ah u beegsatay waliba aan kaga mashalayn wakaalada wararka AB ayaa xaqiijisay in ugu yaraan hal weerar markaasi lagu beegsaday deegaanada markaasi deegaanka xafiisyada hogaamiyaha sare taasi oo nasara u qaaday halista siyaasadeed oo ay ka mid ka yihiin amni iyo waliba ka dhalan karta qatar weeraro kale oo ka duwan ilaa ay hadda ma jiraan war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Iran kuwaas oo ku saabsan qasaaraha dhabta ah ama markaasi bartilmaameedyada rasmiga ah oo la xaqiijiyay xaaladaha Tehran ayaana wali markaasi aad u kacsan oo walibana ku socda weeraro isdaba joog ah oo waliba said ah oo aan sina ugu gambasho lahayn waxaana inta badan la tilmaamayaa hay'adaha amniga Israa'iil ayaana sheegtay in weeraradaasi ay socdaan ama ay ka socdaan Iran ayna yihiin weeraro wada jir ah oo in u fulinayaan Israa'iil Mareykanka sida uu hogaamiyaha warbaahinta ee Al Arabiya markaasi uu baahiyay warbaahintu waxay markaan imaanaysaa xilli qaraxyo oo culusi markaasi laga maqlayo meelo ka mid ah caasimadda Tehran iyadoo sawirro iyo waliba muuqaalo laga arkayo qiiqa uu cirka isku soo shararayo gudaha xaafadaha magaaladaasi ila wareedyo markaasi oo maxalli ah ayaa xaqiijinaya in weeraradan isdaba joog ah oo markaasi laga maqlayo Tehran aanan wali si rasmi ah loo shaacinin qasaaraha ama waliba bartilmaameedyada lala beegsaday suuqyada iyo waliba sidoo kale saamileyda ee ganacsiga ee Iran markaasi laga shakiyay ama in la joojin waayo iibkooda oo waliba Tehran sida ay markaasi ku dhawaaqday in xaaladda markaan iska bedeshay oo waliba saameynteedu ay mar kale yeelan karto walow aan si cad loo xaqiijinin laakiin Mareykanka Israa'iil waa isbeestan oo waliba talaabo ay u qaadeen markan sidii gabi aan lagu burburin lahaa Iran hadaba iyo waliba sidoo kale xulufaysigeeda jawaab nooce ay ka bixin doonaan markan dagaalku uu bilowday hore hadaan idin kugu sheegi jirnay fariimaha isku diray waa la sandadaya waa la isbeena hadaad maqli jirtaan markan si toos ah u bilowday oo walibana weerarkii ugu horeeyay Israa'iil ee fulisay kaliya waxaan ogeyn dagaalka inuu markaasi kala dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka wada hadallo u socday sidii xal lagu raadin lahaa iyo waliba doodooda ay taagneed laakiin markan waa isbedelay ugu weynaaday dagaalku cirka isku soo qabtay Israa'iil ayaa ku soo biirtay oo waliba duqeyntii ugu horeeyeen iyada ayaaba fulisay oo maanta Iran qaybo kamid ah hulcinayso hadaba hogaamiyaha Israa'iil
sababta waqtigan uu ku beegsaday ayaa ilaa hadda Iran ay la yaabantahay iyadoo aanan wali shaaca laga qaadin waxa dhabta ama xaqiiqda halkaasi ka jira walow aan si cad loo shaacinin qorshaha kale ee ku aadan ee dabcan ay qaadi doonto Iran laakiin hogaamiyihii Iran ayaa hadda la warinaya in uu marxalado kala duwan uu wajahayo quwanayaashana dambe aan idinku la wadaagi doona wixii kale ka soo kordha dagaalka halkaasi ka socdo iyo waliba halka uu ku dambeyn doono saaxiibadeeda kana noo cimaamado channelka subscribe noo saar like saaxiibo hore noo joogo saaxiibo far badan inta soo sahnaaga garanin ma sanadeen soo dhaw saaxiibo